madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa dhabaal tacsiya u diray ehelka qoyska golaha guurtida iyo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu ka baxay Allah u naxariistay marxuum xildhibaan Maxamed Nuur Sugaal oo ka tirsanaa golaha guurtida Soomaaliland kaasoo maanta ku geeriyooday magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. Dhabaalka tacsida ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku saxeexan yahay afayeenka madaxweynaha Xuseen Aadan Cige Deyr ayaa u dhignaa sidan: tacsi madaxweyne, inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro isagoo ku hadlayay magaciisa ka dawladda iyo ka shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu dhambaal tacsiya u dirayaa ehelka qaraabada qoyska golaha guurtida iyo qaranka Soomaaliland ee uu ka baxay Allah u naxariistay marxuum xildhibaan Maxamed Nuur Sugaal oo ka tirsanaa golaha guurtida Soomaaliland oo maanta 24 bisha 12 2025 ku geeriyooday magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. madaxweynuhu waxa uu marxuumka ku tilmaamay talaqabeen iyo waayeel guurtinimo ku sifaysnaa oo kaalin weyn ka soo qaatay nabadayntii iyo dibudhiskii dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland. madaxweynuhu waxa uu mar labaad marxuumka eebe uga baryayaa in uu jannatul firdawsul a'la ka waraabiyo ehelka qaraabada qoyska uu ka baxay iyo golaha guurtida Soomaaliland oo ka tirsanaana samir iyo iimaan saadiq ka siiyo. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Cabdicasiis Ciidid, cilmi warbaahinta qaranka, qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland, Hargeysa.